Macalaikum asxaabta soo dhawaada meel walba aad joogtaan maanta iyo muuqaal cusub muuqaalkeena wuxuu ku saabsan yahay website-kan aad arkaysaan. Website-kan waa website maalgashi ah oo markaasi aad lacag ka samayn karto. Waxaan hadda ku tusi doonaa qaabka aad iskaga diiwaangelin lahayd iyo siyaabaha aad lacagta u dhigi lahayd. Website-ka waxaa lagu magacaabaa Continental Mall ama continentalvab.com. waa halkaas magaciisa kor ka akhrisan kartaa. Okay, website-kan marka qaabka iskaga diiwaangeli kartaa halkan email ayaa gasho doontaa, halkan password ayaa gasho doontaa, magacaaga waa ka dhigi kartaa iyo lambaro. Sidoo kale passwordkii kor gelis ayaa halkan geli doontaa. Invitation code-kan automatic meesha waa kugu diyaarsan doonaa oo linkiga markii aad soo raacdo lagagama baahna. Asiga ayaa si automatic meeshan kugu diyaarsanaa doono. Kadibna waxaad dhihi doontaa sign up ayaa dhihi doontaa. Okay, aniga mar hore ayaan iska diiwaangeliyay sign in ayaa leeyahay oo hadda waxaan rabaa automatic inaan website-ka gudaha aan u galo. Waxaan ku tusi doonaa website-ka waxyaabaha markaas aad ka qaban lahayd VAB-yada qaababka aad u kala furi lahayd. Okay, soo dhawow website-ka saan markaad u soo gasho wuxuu ku leeyahay soo dhawow oo markaasi waxyaabo badan ayuu halkan kuugu sheegi doonaa. Intaan ayaa ka akhrisan kartaa website-ka waxyaabaha ku saabsan. Waxaa arki kartaa wuxuu ku leeyahay halkan wuxuu ku leeyahay VAB1 waxaa halkan ka arki kartaa VAB1 inaad ku furi karto $7 dhiirin aad helaysa ikam ahaan $2.33. Hadda ayaan dhiganaysaa isla hadda ayaan ka qaadanaysaa. Maalin walba ayaa sidaas ugu qaadanaysaa daily waa arki kartaa. VAB2 $40 dhiga doontaa $13.3 ayaad maalin walba ka qaadan doontaa. VAB3 $108 ayaa dhiga doontaa $36 ayaa maalin walba ka qaadan doontaa. VAB4 $398 ayaa dhiga doontaa daily maalin walbana waxaa qaadan doontaa $132. Okay, marka hadda waan iska soo diiwaangelin waxaan rabnaa inaan lacag dhigano. Marka waxaa sameyn doontaa website-kan waa arki kartaa waa website amba company iibiyo mootooyinka iyo waxyaabahaas. Marka VAB1 ayaa furanaynaa. VAB1 waxaa lagu furtaa $7, VAB2 waxaa lagu furtaa $40, VAB3 $108, VAB4 $398. saas ayay u kala baxaan. Marka waxaad doonaysaa marka inaad lacag dhigato maxaa sameyn doontaa marka recharge meesha ay ku qoran tahay ayaa kala gisi doontaa. Recharge markii aad ku dhifato waxaa sameyn doontaa wuu wareegsanayaa. Kadibna waxaa sameyn doontaa copy ayaad dhihi doontaa. Ciwaankan ayaad copy dhihi doontaa. Ciwaankan markii aad copy-yeysato halkan si fiican iskaga akhri. Lacagta waxaad ku soo diri doontaa amba oo markaan website-kan qaadanaya ayaa waxay tahay in TRC20 USDT wallet-ka aad markaas lacagta aad ku soo shubo karto. Okay, copy ayaa leeyahay marka. Copy markii aan dhaho waxaan tagi doonaa TRX-kiga aan dhehayna Trezor wallet-kiga ayaa tagi doonaa. Weli waxaa kasii tagi doonaa qaybta ay ku qoran tahay USDT. waan soo galaysaa halkan ka aragtaba Trezor wallet-kiga kadibna USDT ayaan kasii doonaa. waxaa rabaa website-ka inaan lacag u soo diro. halkaas send ay ku qoran tahay ayaa ku dhifi doontaa markii aad lacag aad dirayso. Send markii aan ku dhifto ciwaankii aan wada ayaa halkaas paste ku leeyahay oo aan soo koobiyeenayay. Kadibna halkan lacagta ayaa keli doonaa oo ah $7. $7 markii aan sidaas aan u geliyo waxaan dhihi doonaa next markii aan ku dhifto wuu wareegayaa. waa sugaynaa oo markaasi wuxuuna tusayaa gas fee-ga iyo waxyaabahaas. marka kadibna continue ayaa sii leedahay. marka saa halkan ka aragtaba waxaa waaye network gas fee $27.39 ayay u goosanayaan oo u dhigmato $3.26. marka waa qaali Trezor wallet-ka oo lacagtiisa waxaan ku keeni doonaa application kale laakiin hadda dhib ma lahan oo kan ayaa markaas hadda lacagta ka qaadan doonaa. mar walbana waa inay lacag kugu jirtaa TRX lacag haddaysan kugu jirin oo USDT keliya lacag kugu jirto gas fee-gooda ma sii kartid oo lacagtan ma kaa bixaysa. laakiin hadda aniga gas fee waa hayaa oo lacagta waa iga bixaysaa. maximum totalkan waxay noqotay $10.26 keliya. aniga $7 oo USDT ayaan soo dhigtay laakiin $3 ayay waxay iga jarnayaan gas fee ahaan. marka taasina waa caqabad weyn. marka Trezor wallet waxaa waaye lacagtiisa qaali ayay noqotay. mid kale ayaa jira midkaas kale ayaa muuqaal ka soo samey doonaa kaas ayaan u guuri doonaa insha Allah. Okay, continue confirm ayaa dhihi doonaa. Okay, log ayaa ka furi doonaa. log markii aan ka furo automatic waxaa waaye lacagtaasi waxay aadi doontaa si toos ayaa markaas loo jaranayaa. oo arkaysaa processing ayuu lagu leeyahay. lacagta hadda aniga way iga baxday. waxaan ku noqon doonaa website-ka ayaa ku noqon doonaa oo hadda processing ayay ku jirtaa lacagta. saa halkan ka aragto completed ayaa la dhahay oo lacagtii way baxday $7. marka waxaa sameyn doonaa website-kii ayaa ku laaban doonaa. website-ka markii aan sidaan aan usoo galo waxaa taaban doonaa recharge completed meesha ay ku qoran tahay. recharge completed markii aan ku dhifto wuu wareegayaa. recharge completed ayaa leesoo qoray automatic dashboard-ka gudaha ayuu igey doonaa. waxaan rabaa
VEB in laga furo oo VEB 1 ahay ayaa markaasi rabaa in laga furo oo lacagta inay soo gasho in kale ayaa fiiri doonaa. Okay, lacagtii welina ma soo gaarin laakiin waa sugi doonaa oo automatic lacagtii wayna soo gaari doontaa. Refresh ayaad leedahay. Refresh markii aad dhahdo wuu is refresh gareynaa kadibna waxaan arkaynaa lacagtii inay noo soo dhacday in kale. Okay, welina ma soo gaarin. Waan sugaynaa. Okay, wax yar daqiiqada yar ayaan sugaynaa si toos ayada ayaa noo soo dhici doonta. Boom waad arki kartaan lacagtii way noo soo gashay hal daqiiqo kadib caadi si toos ayaa noo soo gaartay. Markaasi homeka ayaa kusoo laaban doonaa qaybta hoos homeka waa arki kartaa geeska ah. Homeka markii aan kusoo laabtana lacagta markaasi waxaa lagu furi doonaa VEB 1 ayaa looga laga qaadi doonaa. Looga waa laga qaaday. Hadda automatic lacagtiida $2.33 hadda ayaan ka qaadanayaa. Marka waxaa arkaysaa waxaa iibi doonaa maxay ahayd lugtaas oo markaasi waa company lugahaas iyo waxyaabahaas mootada iyo waxyaabahaas ka ganacsado. Marka waxaa la gadayaa oo ku fadhiyaa markaas bariiskiisa $7 waaye. Aniga income ahaan waxaa ku leeyahay $2.33 marka to complete ayaa leeyahay. Si toos ah waxaa waaye $2.33 hadda ayaa la bixi doonaa waa arki doontaa. Okay, login ayaan dhahay wuu wareegsaday kadibna waxaa kusoo noqon doonaa meesha homeka ayaa kusoo laaban doonaa oo orderka sidaas ayaana markaasi soo iibeyba oo markaasi waan ka qaatay lacagtiida. Okay, waxaan sameyn doonaa marka waxaad tagi doontaa withdraw ayaa ku dhifi doontaa isma dhibaysid. Withdraw markii aad tagto halkan waxaa geli doontaa lacagta. Halkan address ayaa geli doontaa addresskaaga ayaa geli doontaa kadibna halkan waxaa geli doontaa password ayaa geli doontaa. Okay, intaan ayaa soo qaban doonaa. Okay guys, intaba waa soo geliyay passwordkii iyo sidoo kale lacagtii iyo maxay ahayd addresska waa soo geliyay. Okay, waxaa dhihi doonaa confirm $2.33 inay baxdo ayaan rajeynaa. Okay, confirm ayaa dhahay wuu wareegayaa. Si toos ah lacagtii way baxday oo waa arki kartaa total balance-gii meeshii way ka baxday. Automatic halkaan ay naga soo gaari doontaa wax yar kadib way noo soo dhici doontaa. Waa sugaynaa ilaa ay naga soo gaarto ama markaasi ay noo soo dhacdo. Automatic waa arki kartaa way noo soo dhacday adigoo markaas arkaayo saacadii waqtigana waa arki kartaa $2.33. Transfer wallet-ka ayaan kugu sii xaqiijinayaa oo aan ku geey doonaa si aad wax walba halkaas ugu sii xaqiiqsato. Transfer wallet-ka ayaan kusoo laabtay. Okay, log ayaan ka furi doonaa. Log markii aan ka furo kadib gudaha ayaan u geli doonaa waan ku tusi doonaa. Okay, refresh ayaa leeyahay $21.74 ayaa ku jirtay. Sorry, taas waa lacagtii hore. Marka waxaan sameyn doonaa marka waxaan ku dhifi doonaa halkan ayaan ku dhifi doonaa. Waxaan rabaa lacagtaas $2 waa arki kartaa automatic wayna soo gaartay. Automatic wayna soo gaartay oo waa kaasaa lacagtii wayna soo gaartay. Waxaana soo gaartay $2.32 ayaan soo gaartay hal ayay jirtaan markaas wax weyn ma ahan. Markaasi automatic ayay noo soo gaartay. Marka sidaas ayaa markaas website hadda lacagtu ugu soo shub oo aan u dhigtay isla markiina aan withdraw u sameeyay. Adigana sidaas oo kale ayaa sameyn kartaa insha Allah inaa wax walba muuqaalkan aad ka fahantay ayaa rajeynaa. Okay, website-ka linkigiisa waxaan ku dhigi doonaa description-ka muuqaalkan hadda daawanayso hoostiisa. Insha Allah muuqaalkan inaad like saartaa rajeynaa. Subscribe-na channel-ka aad saarato gambaleelkan aad all furato si ay video walba ay kuu soo gaaran isla daqiiqada aan u soo dhignay. Website-kan ka faa'iidaysta insha Allah. Website badan waa soo socdaan asxaabta nagu taageera inaad like-ta meel dheer aad gaarsiisaan. Insha Allah halkaan aan kusoo gabagabeynaa muuqaalka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.